بسم الله الرحمن الرحيم. أنا magacay waxa la Xuseen Maxamed Ibrahim Asayn. Marka halkan waxaan kuugu qabanayaa inuu hal gabay oo yar oo aan waliba ku dhameynayna kala barkiya waayo fursadda ay ugu yar. Marka waxa ay da'da gabayga Soomaaliyeed maqal dabuurtayda. Dambi igama raaco naxwaha uu da'tiriyay. Dadku iguma hiifaan murtida dood mid kaan bidoo. Dadaw maqal dabuurta tisheedinta aan saaray. hadba kii damiirlo ka bogo duqooniyeelkeeda niman yahuud dalweyn baan lahayn deeq ilaah dhigay duuyada quraha igu filay dahabkii yihiin wax kale ay daboolaa ka wacan aan dul yuurulay wabiga dushiisii fadhiyay doogi beeraha ah dan wadaagna waa wada ahayn dacadooda saale diir iyo ushii baan ahayn duban weligoodi annakoo daruuraha la siman darajadaan gaadhnay calankuna dushayda babadaya dib lay dhigay maanta daayinkayga jiree dunida aan joogno dadka waanu ugu liidanaa waa daliilaba dagaal baana reebiyo tolaay aan dantay wadin degta qorina loo suray habeen daramal shaydaan nin waliba ducdiisu ka riday daana garan waayey dariska culoobiyo kuwii deyrka wada yiil ninna daar maseexdiya cariish dibadax waa yeelay duulaan shisheeyana ma baqay wadadooda yaal nin difaac walaalkii ka galay ama se doondoonay aan maydka duugaynag yaal darajahayn waaye sidii awr duleed lagu xidho dabar la boodaayo oo seeto waa dibicsanteed doqoni dhuuxiyeysay dib u kaashay Soomaalidii dacadda ahayd mar qura dareen kala dhex galay daana waa bilooy ragsa waa dagaalami jiro dib u heshiiyay qormiyayna daawaba lahayn diriida mooyaane daayeer islaayaad shaqaan isdaakhilin madan buu inoo yahay madfaca dumiyay reerkeena dubna xabamiyayna lahayn dumarkan ooyaaya ee sabiga daadihinayay dibeedaha u yaacay markii ay dagaalada arkeen caydalkii hooyo iyagoo dareemo sida dumarku waa yaab ubadkeeni deeqta jiray hooyo duduucaya qaarkood dusha sare ku sida naxayso diihaalka Itoobiyadan dacalkeena taaldaya orahdayda kiiliya danooday u galay dariska noo muuqda qaxootiga